waxaan diyaar u ahay in meesha aan maanta aan kula wareegay meel ka sii sarreysa aan sii gaarsiiyo mudanayaal mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan ku sugan oo ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda iyo gudoomiyaasha kale sida mansabka iyo maamuus kale ee halkan ugu sugan yihiin dhammaan anoona teetaladooda kala qaadeen saraakiisha iyo dhammaan taliyaasha iyo madaxda kala duwan ee wasaaradda maaliyadda ee halkan ku sugan saxaafadda marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka xigta waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdullaahi xuseen cali guudlaawe iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle mudane yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed iyo wasiirka maaliyadda dowladda hirshabeelle mudane cabdiraxiin ciise cadow kuwaas oo jaanis iyo fursad ii siiyey in aan noqdo isku duwaha cusub ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka hiiraan markaan ka soo tago mahadcelintaas waxaan u mahad celinayaa walaalka ciilow jooban cawaale oo xilkan muddo 3 sano iyo bar soo hayay meel siira ka bilaabay maantana meel la taaban karo soo gaarsiiyay waxaan diyaar u ahay in meesha aan maanta aan kula wareegay meel ka sii sarreysa aan sii gaarsiiyo inta jaaniska iyo fursadaas aan goobjoog u ahay waxaan ka codsanayaa maamulka qaybihiisa kala duwan ee mas'uuliyiinta halkan ku sugan saraakiisha amniga oo booliska ugu horeeyo iyo saraakiisha kale ee ciidamada in ay si wanaagsan ila shaqeeyaan muddada halkan aan joogo oo shaqadan ahayo leegana shaqeeyo sidii isku duwii hore loola shaqeynaya si ka sii ballaaran waxaan diyaar u ahay inaan si dhow iyo si guud aan wada shaqeyno dhammaan inta ay shaqada igala dhaxayso hadal badan ma jiro muhiimaddu waxa waaye xil wareejinta iyo mas'uuliyiinta inay goobjoog ka wada ahaadaan aad u mahadsantihiin saxaafadan oo u mahad celinaya